بسم الله الرحمن الرحيم كلنت وعنا wanaagsan dhageystayaal ku soo dhawaada barnaamijka subaxnimo ee qubanaha radio sahan taariikhda waxay ku beegan tahay 6da bisha 7 sanadka 2019 waa maalin sabtiya qodobada subaxnimo ee barnaamijka qubanaha aad ku dhageysan doontaan waxa dhageystayaal kamid ah wasaaradda arrimaha dibadda ee Soomaaliya oo qorsheynaysa inay maanta ku dhawaaqdo go'aan cusub taliyaha ciidanka daraawiisha Puntland oo dardaaran u jeediyay ciidamada difaaca Puntland xilli ay jiraan in ciidamo badan oo Puntland ay ka soo ruqansadeen fariisimaha difaaca ay ku yaal gobolka Sool qodobada kala dhageysa la maqal doontaan waxa kamid ah siyaasiyiinta Soomaalida maxay ka dhaheen xiriirkii ay dhawaan dawladda federaalka u jirtay dalka yar ee Guinea kadib markii halkaas uu booqasho ku tagay madaxweynaha Somaliland guddiga dhismaha garoonka kubadda cagta Gaalkacyo waxay eedeen dusha uga tooreen gudoomiyaha xiriirka kubadda cagta Soomaaliya oo ay ku eedeeyeen in uu lugooyay guddiga dhismaha hawshaasi gacanta ku haya Radio Sun waxay maantay bilaabi doontaa ama barnaamijkeeda qubnaha ku soo kordhin doontaa xubin kamid ah oo aan ugu talagalnay in aan kula wadaagno taariikhda galay ama qodbadihii taariikhda galay ay jeediyeen hogaamiyaashii hore ee Puntland laga soo bilaabo madaxweyne Cabdullaahi Yuusuf Axmed waxaan kala soo qaadan doonaa siyaasiyiintii hogaamiyaashii dhaqanka ee Puntland dhismaheeda qaybta ka qaatay qaybta ugu dambeysay ee barnaamijka qubanaha ayaad ku dhageysan doontaan waxayna maanta ku bilaabi doonaa qodbad uu jeediyay qayb kamid ah madaxweynihii hore ee Puntland ahna madaxweynihii hore ee Soomaaliya Cabdullaahi Yuusuf Axmed intaas oo dhan waxa ka soo reeyay dhageystayaal warkii subaxnimo oo kooban wasaaradda arrimaha dibadda ee Soomaaliya ayaa mar kale waxay isugu yeertay suxufiyiin shir gaar ah oo aysan shaacin arrimaha looga hadli doono kadib markii shalay ay wasaaraddu ku dhawaaqday inay xiriirka u jirtay waddanka yar ee Guinea ee ku yaala galbeedka qaaradda Afrika qoraal saxaafadda loo kala diray ayaa lagu sheegay in wasaaradda arrimaha dibadda iyo iskaashiga caalamiga ee dawladda federaalka maanta Sabtida bisha July 6deeda ay shir gaar ah ku qabanayso magaalada Muqdisho hase yeeshee wasaaradda arrimaha dibadda ayaa 3 bishan ku martiqaaday suxufiyiinta xarunteeda balse dib uga laabatay shir jaraa'id oo lagu waday inuu qabto wasiirka arrimaha dibadda ee Soomaaliya balse maalintii ku xigtay la qabtay wasaaradda arrimaha dibadda ayaa lagu dhaliilaa inay saxaafadda u soo bandhigto go'aano rasmi ah kuwaas oo si weyn lagu dhaliilo wasaaradda waxaana dadka siyaasadda u dhandoloola ay ku tilmaamaan wasaaradda inay tahay mid jiha wanaagsan aan ku socon waa sida ay warkaasi loo dhigay guddiga dhismaha garoonka kubadda cagta ee magaalada Gaalkacyo ayaa waxa ay si kulul eedeen dusha uga tooreen gudoomiyaha xiriirka kubadda cagta ee Soomaaliya waxa ayna sheegeen in uu markaasi ka baxay ballanqaad uu sameeyay in uu xiriirka kubadda cagta Soomaaliya ka qayb qaadanayo dhismaha garoonka kubadda cagta ee magaalada Gaalkacyo haatan dhismihiisa ka socdo caasha la diiriyay wasiirkii hore ee haweenka iyo arrimaha qoyska ee dawladda Puntland ayaa waxa ay sheegtay inay aad uga xun tahay in gudoomiyaha xiriirka kubadda cagta ee Soomaaliya Cabdiqani Siciid Carab uu markaasi ka been sheegay ballanqaad uu sameeyay oo ku aadanaa inuu ka qayb qaadanayo garoonka kubadda cagta ee magaalada Gaalkacyo oo haatan meel dhexa dhismihiisu marayo barnaamijka qubnaha ayaad ku dhageysan doontaan eedeynta ay guddigu u jeediyeen gudoomiyaha xiriirka kubadda cagta ee Soomaaliya ra'iisul wasaaraha dawladda federaalka ee Soomaaliya ayaa shalay oo Jimco ahayd waxa uu sheegay inay laga maarmaan tahay midnimada Galmudug si loo dhameystiro hawlgalka qaawarijta looga xoranayo goobaha ay kaga harsan yihiin dawlad goboleedka Galmudug ra'iisul wasaaraha oo khudbad u jeedinayay shacabka magaalada Dhuusamareeb ayaa waxa uu sheegay in ama uu bogaadiyay dadaalka ay culimada ahlu sunna wal jamaa ay hogaaminayaan lagula dagaalamayo kooxda Al-Shabaab isagoo oo ku baaqay in loo midoobo sidii dalka oo idin looga saar lahaa ururkaasi dhinaca kale ra'iisul wasaaraha ayaa ka digay dhibaatada ay qabyaaladu leedahay iyo saameynta xun ay bulshada ku reebto waxaana uu farta ku fiiqay in loo baahan yahay in si wada jira arrintaasi loo dagaalamo warkaasi halkaad kala socotaan waa idaacadda Sahan 89.2 ciidamada cadawga Generaal Khalifa Haftar ayaa waxa ay sheegeen inay soo rideen diyaarad ay leedahay dawladda Liibiya sida ay ku warantay wakaalada wararka AFP dawladda ay taageertay qaramada midoobay ee Liibiya waxa ay dhinaceeda sheegtay in diyaaraddu ay ku maqneed hawlgal ay ka fulinaysay koonfurta caasimadda Liibiya ilaa iyo hadda wax faahfaahin lagama hayo shaqaalihii saarnaa diyaaraddaasi
waxaa intaasi ku dartay in diyaaradda ay lumisay xiriirka balse aanan laga warhayn halka ay ugu wardambeysay. dhinacyada ku dagaalamaya libiya ayaa 3 bilood ee lasoo dhaafay ay diyaaradda kaga burbureen colaadaha ka socda waddankaasi libiya. Generaal Khalifa Haftar oo qayb ka ah siyaasadda libiya muddo ka badan 40 sano wuxuu noqday nin ay warbaahinta caalamka aad u hadal hayaan maalmihii lasoo dhaafay. Khalifa wuxuu ku dhashay bariga magaalada Ajdabiya sanadkii 1943. Haftar wuxuu ka mid ahaa koox saraakiil uu hogaaminayay duulaankii Korneel Muammar al-Qaddafi uu awoodda kaga qaaday boqor Idris sanadkii 1969. intaas dhageystayaal kusoo koobaya warkii subaxnimo. u diyaar garooba qaybaha kale ee barnaamijka subaxnimo ee qubanaha Radio Sahan. dhegeystayaal mar kale ayaan idinku celinayaa idaacadda Sahan waxa ay maantay barnaamijkeeda subaxnimo ee qubanaha subax walba insha Allah ku soo qaadan doontaa qaybo kamid ah hadaladii muhiimka ah ee ay jeediyeen hogaamiyaashii Soomaaliya Puntland sida madaxweynihii ugu horeeyay dawladda Puntland Cabdullaahi Yuusuf Axmed iyo waliba hogaamiyaashii xagga siyaasadda iyo dhaqanka ee Puntland soo maray. hadaladaas oo kuwii taariikhda galay ee ku xusan baalasha dahabka ee Puntland. subax walba barnaamijka qubanaha ayaad ku maqal doontaan qaybta ugu dambeysay barnaamijka. waxaynu saaka ku bilaabi doonaa madaxweynihii hore ee Puntland Allah u naxariistay Cabdullaahi Yuusuf Axmed khudbad qayb kamid ah khudbad uu jeediyay sanadkii 2007 xilligaasi waa sanadkii 2008 xilligaasi oo madaxweynihii hore ee Puntland Allah u naxariistay Cadda Muuse oo ka hadlayay arrin la xiriirta doorashadii loo badlanaa 2009. qaybta ugu dambeysay ee barnaamijka ayaad ku dhageysan doontaan ee la socda. waa hagaag aynu ku bilaabanay barnaamijka subaxnimo ee qubanaha qaybtiisa ugu horeysa. taliyaha ciidanka daraawiishta ee dawladda Puntland ee dhawaan la soo magacaabay ayaa markii ugu horeysay booqasho ku tagay xerada konton afraad iyo waliba xarumaha ciidamada difaaca Puntland ay ku leeyihiin gobolka Sool. taliyaha ciidanka daraawiishta ayaa socdaalkiisa ku beegmay xilli ay warbaahintu qoraysay in cutubyo kamid ah ciidamada difaaca Puntland ay ka soo baxeen aaga jiida tukaraq ee gobolka Sool halkaasi oo ay ku dagaalami jireen ama ay isku horfadhiyaan ciidamada Puntland iyo kuwa Soomaaliya. taliyaha ayaa niyadda u dhisay ciidamada difaaca Puntland waxa kale uu fariin u diray Soomaaliland oo iyagu gacanta ku haya qaybo badan oo ka mid ah gobolka Sool. dada aan hadda anigu xilka hayo meesha joogay wax yar bay ahayd asbuuc kama soo wareegin. waxaan jeclaystay inaan marka ugu horeyso bal salaadeedu ku imaado. saaka waxaan ku imi salaan inaan wajiyadiina arko oo idin hor istaago idinkuna wajigayga aragtaan. haddii rag hore isu yiqiinay ma dhihin laakiin wixii hadda ka dambeeya baynu isbaranaynaa haddii ilaahay idmo. dhulka kale aad joogtaan iyo deegaanka kale aniga iguma cusba. waxa weeye aad iyo aad baan marka ugu faraxsanahay imaatinkaan idin imi. xaaladihiina si fiican baan ula socdaa. warbixinahooda horaan u hayay ciidanku waxa uu ku sugan yahay. haddaan xilka qabtay oo halkan lay dhiibayna mas-uuliyiinta xilkaa ii dhiibtay waa ka wada hadalnay oo wax kaaya isugu haray ma jiraaniin. anigu waxaan yidhi xilkaas haddaan qabtay wixii waajib ahoo nala ku leeyahayna waa gudanaynaa. wixii xuquuq wixii aanu leenahayna inaanu helno baa laga maarmaana. ciidankaasi waxa uu xaq u leeyahay nin walbi waa yaqaana. nolol buu xaq u leeyahay oo mushahar iyo raashin iyo iidaan intaba leh. daryeel buu xaq u leeyahay. agab buu xaq u leeyahay. saanad buu xaq u leeyahay. gaadiid buu xaq u leeyahay. shidaal buu xaq u leeyahay. hawlgallo uu fulinayo uu xaq u leeyahay. waxa allaale wixii ciidanku xaq u leeyahay inaanu helno baanu ilaahay idankii rajaynaynaa kana sugaynaa madaxdii xilka haysay oo magacawday. sida kaliya oo aan ku gudan karaynaa waajibka iyaguna waa sidaa. dhammaantii waxa u timaadeen halkan inaad daafacdaan dalkiina. waa laydinku soo xadgudbay. dhulkeenni baa la soo sheegtay oo laydinku soo xadgudbay. inagu ninna ma doonan ninna duulaan kuma dhihin. waxaanu doonaynaa Soomaali inay kala nabad hesho oo kala nabad gasho oo nin walba deegaankiisu ku sugnaado.
dalku wayna ka wada dhexeeyey hase yeeshee burbur baa dhacay dawladdii dhexaad dhacday dabadeedna deegaan walba deegaankii dadkiisii baa tegey dadkiisu waa inay ku nabad helaan deegaankooda reer ka adag iyo reer qabsan kara iyo reer ku duuli kara midna ma jiro waa xaqiiqo dhaba weeye inaad marka dalkiina difaacdaanin baa halkan u joogtaanin annaguna aanu hadda madax idinku nahay ilaahay idankiis ilaahay waxaanu ka baryaynaa ilaahay inuu nala garab galo hawsha iyada ah waa hagaagkaasi wuxuu ahaa taliyaha ciidanka daraawiisha ee dowladda puntland ee dhowaan la magacaabay ayaa booqday xarumaha ciidamada ay ku leeyihiin gobolka sool ama jiidaha gobolka sool waxaana uu dardaaran la siinayay ciidamada difaaca puntland xilli maalmo ka hor ay warbaahintu shaacisay in qaybo badan oo kamid ah ciidamadaasi ay kasoo baxeen iyagoo ka camaliyay sababo la xiriira xagga mushaarka dowladda federaalka ee soomaaliya ayaa maalmo ka hor xiriirka u jartay dalka yar ee Guinea kadib markii halkaasi uu booqday madaxweynaha Somaliland Muuse Biixi Cabdi haddaba siyaabo kala duwan ayay siyaasiyiinta caanka ee Soomaalida uga falceliyeen xiriirkaasi dowladda u jartay waxaa ka mid ah dadka ka hadlay wasiirkii hore ee waxbarashada ee dowladda Puntland ahna wasiirkii hore ee arrimaha gudaha iyo musharax madaxweyne ee Puntland 2019 Cabdi Faarax Siciid Juxa ayaa ciwaan uga dhigay sidee loo fasiri karaa maxaase ka dhalan kara xiriirka ay Soomaaliya sheegtay inay u jartay Jamhuuriyadda Guinea waxa uu soo qaatay siyaasigan Guinea ma aqoonsan Somaliland mana jirto war ka soo baxay xageeda oo arrimahaasi ku saabsan kaliya waxay booqasho ku casuumeen madaxweynaha Somaliland Muuse Biixi Cabdi waxa kale uu sheegay qarsoodi ma aha in Somaliland 28 sano ee u dambeysay ay sheegtay inay Soomaaliya ka gooday adduunkana siyaabo kala duwan oo la macaamilisay Soomaaliya xiriir diblomaasiyadeed ama xiriir safaaradeed Guinea kuma laha mana jirto xiriir diblomaasiyadeed oo la gooyaa haddaba sidee arrintan loo fasiri karaa maxaase ka dhalan kara kaliya waxay tani muujinaysaa qalqal jahawareer iyo nugeel diblomaasiyadeed oo xadaaf ah dhinaca dowladda federaalka waxaana ka dhalan kara buu leeyahay kala fogaansho iyo damqasho boogihii tabashada reer Somaliland iyo Muqdisho waa talo iyo tallaabo aan laga fiirsan ayuu ku tilmaamay Cabdi Faarax Siciid wasiirkii hore ee arrimaha gudaha ee dowladda federaalka ee Soomaaliya ahna wasiirkii hore ee waxbarashada Puntland waxaan kala soo qaadan doonaa siyaasi Cabdiraxmaan Cabshukuur oo kamid ah siyaasiyiinta mucaaradka ee Soomaaliya isagana muxuu ka yiri waxa uu leeyahay go'aanka xukuumadda federaalka xiriirka ugu geysay dalka Guinea oo aan weligii Soomaaliya xiriir diblomaasiyadeed la yeelan waxa ka muuqda buu leeyahay fudeed iyo qaangaar la'aan diblomaasiyadeed dowladda ay ka mid yihiin Ethiopia Kenya Djibouti ayaa maamuus iyo waliba soo dhaweyn maqaam sare leh horay ugu qaabilay madaxda Somaliland xukuumaduna kama falcelin xiriirna uma jarin haddaba go'aanka ay xukuumadda federaalku qaadatay waxa ka muuqda ayuu leeyahay marba meel dhacaan lahayn mowqif mid ah oo sugan aan ku soo celiyay waxa uu leeyahay marba meel dhacaan lahayn mowqif mid oo sugan maadaama fararkii diblomaasiyadeed ee ka duwan ee kuwa la midka ah ay hore u dhaceen lagana aamusay kana ka hadalkiisii ugu horeeyay looga falceliyay go'aanka wuxuu sawir ka bixinayaa fudeedka iyo qaangaar la'aanta diblomaasiyadeed ee hoggaanka sare ee dowladda sababtoo ah buu leeyahay falceliska diblomaasiga wuxuu leeyahay habraac marxaladeysan iyo curfi diblomaasi ah oo loo maro xiriir jaridda waa tillaabada ugu dambaysa ee ma ahan tillaabada laga bilaabo go'aanka wuxuu kaloo durjinayaa isku soo dhawaanshaha Soomaaliya iyo waliba Somaliland wuxuuna fursad siinayaa inta ku howlan kala qaybinta labada dhinac iyo waliba wada hadalka in uu xirmo وهجاك كواس وحيين أركتدا قار كم إذا سياسيين تا دولة فدرالك الصومالية يجو مركزي كجهلي go-aankii ay xiriirka ugu jirtay wadanka yar ee Guinea oo uu dhawaan booqasho ku tagay madaxweynaha Somaliland lafteedu waa ka farcilisay waxa ay sheegtay inay ka xun tahay in dawladda federaalka Soomaaliya ay arrintaasi soo faragashato waxaana ay sheegtay inay la joogo xilligii dawladda federaalka iyo dawladda Somaliland ba loo kala garqaadi lahaa waa hagaag inta hadda ku dhaafo aragtidii ay ka dhibteen siyaasiyiinta Soomaalida go-aankii dawladda Soomaaliya xiriirka ugu jirtay dalka Guinea waxaan haatan u wareegayaa magaalada Gaalkacyo xarunta gobolka Mudug guddiga dhismaha garoonka Cawaale ee kubadda cagta ayaa waxa ay eedeyn dusha ugu tuureen gudoomiyaha xiriirka kubadda cagta ee Soomaaliya Cabdiqani Saciid Carab oo isagu sanad walba loo doorto gudoomiyaha xiriirka kubadda cagta Soomaaliya
doorasho ka dhacda muqdisho. waxa ay ku eedeeyeen in uu sameeyay balanfur iyo arrimo kale. sidaas waxay sheegtay Caasha Galadiiriye oo xubinka guddiga dhismaha garoonka kubadda cagta Cawaale. waatan iyadoo arrimahaasi ka hadlaysa. rabaa in aan halkan maanta ka cadeeyo in ay nasiib darro noo ahayd muddo 3 bilood ah oo qalabkan uu noo yaalay garoonka dhexdiisa oo roogii yaalay oo ujeedaan qorraxda inuu yaalo kuraastii taale wax walba ay yaaleen inay xiriirka kubadda cagta Soomaaliyeed aad u shinsanayna gaar ahaan gudoomiyaha runtii xiriirka kubadda cagta Soomaaliyeed ma eedaynaya dhamaantood waa xiriirkayagii sharaf baan u haynaa iyo karaam aan u haynaa in uu 3 bilood muddo naga dhumiyay saddexdaas uu naga dhumiyay waxay ahayd garoonkan qayb baan ka qaadanaynaa garoonkan cabirkiisa qayb ka qaadanaynaa garoonkan waxaan rabnaa inaad garab istaagno waa noo yimaadeen waxyaabaha ugu yar oo rabo maanta inaan mashin garay waxa weeye markay noo yimaadeen oo muddo sugaynay cabirkii la cabiray naqshadiisii inay noo keenaan bay nagala baxayleen taas waa nasiib darro laakiin waxaan ku faraxsanahay maanta anagoo isku duuban shacabkii reer Puntland kii Soomaaliyeed oo dhan oo garoonkan ka faa'iideysan lahaa dawladda Puntland xiriirka kubadda cagta muxuu ahaayay Puntland iyo dhammaan maamulka gobolka iyo degmada Gaalkacyo inaan u wada istaagnay isku tashigii shalaan ku dhisnay inaan u dhisno annagoo aan u baahan naqshad iyo garab istaag xiriirka kubadda cagta wali xiriirka kubadda cagta marka leeyahay waxa weeye dadka aanu dhibta ka tirsanayna waxa weeye gudoomiyaha xiriirka kubadda cagta Soomaaliyeed oo runtii Cabdiqani Xuseen Carab oo isagu halkan lagu yiis ku yimid 3 bilood ka hor iyadoo soon ah oo taaganahay oo aanu hanweynayn nasiib darro waa ka xunahay inuu ilaa intaas 3 bilood dhibaatana gaarsiiyo oo dib dhac nagu rido isku tashiga iyaga iyo niyadii wanaagsaneed aynayna uu naga baabiyo laakiin dib baan u kabanay alxamdulillah maanta waxaan daahfuraynaa wajigii saddexaad waxaa noo jooga injineeradii gobolka waxaa noo jooga shirkadda Kibaarko oo shirkad caalami ah oo tayadeeda ku kalsoonahay oo muxuu ahaa nala soo garab istaagtay inay noo dhameystirto waxaana garab taagan dawladda Puntland oo ballan qaaday inay garoonkan dhaqaalaha ku baxaya qaybtooda ka qaadanayso waxaa maanta mahad Ilaahay marka maanta inaan daahfurno shacabka reer Puntland meel kasta ay joogaan waxaan leenahay maanta waa maalintiini waa maalintii aad u istaagi jirteen waa maalintii aad hore ugu soo istaagteen waa maalintii aad ka qayb qaadateen dhismaha garoonkan maanta maalintiina way taagan tahay waxaan leenahay ka qayb qaata feeska 3 kaliya noo hari doona oo ah darbiga soo jeedad u jeedaan oo ayna stage ka dhisano kuraasoodi waa noo taala 3,000 oo kursi baa noo 300,000 oo kursi baa noo yaala alxamdulillah injineeradii noo dhisi lahaa waa noo joogaan annagu niyad baan u haynaa diyaar baan u nahay marka waxaanu leenahay feeskan marka uu dhamaado waxaanu bilaabi doonaa feeskii ugu dambeeyay oo garoonkan ku soo afjari lahayn waxaan leenahay soo dhawaada waxaan leenahay ka qayb qaata waxaan leenahay barbarkay ka baxdaa waa bakayla qaleen waa hagaag dhegeystayaal taasi waxay ahayd Caasha Galadiiriye oo xubinka guddiga dhismaha garoonka kubadda cagta Cawaale ee magaalada Gaalkacyo oo eedan dusha ugu turtay gudoomiyaha xiriirka kubadda cagta Soomaaliya barnaamijkeena duhurnimo ee xogta ayaan isku dayi doonaa inaan helno gudoomiyaha Cabdiqani Siciid Carab si aan wax uga weydiino waxyaabaha lagu eedeeyay waa hagaag qaybihii dambe ee barnaamijka ayaan dhegeystayaal soo ku jirnay wali waxaa inoo socda sida aan idin sheegnay khudbad qayb kamid ah hadal taariikhda galay oo jeediyay madaxweynihii hore ee Puntland Cabdullaahi Yuusuf Axmed sida aan idinku xusnana barnaamijka qubnahaas wax walbana waxaa qayb kamid ah ku soo qaadan doonaa hadaladii taariikhiga ahaa ay jeediyeen hogaamiyaashii Puntland soo maray iyo waliba siyaasiyiintii madaxda dhaqanka kalmadihii ay jeediyeen ee qaybta ka ahaa dhismihii dadaalkii dawladda Puntland waa hagaag dawladda Soomaaliya iyo urur goboleedka IGAD ayaa waxay kala sixideen qorshe 6 bilood ee soo socota lagu diyaarinayo guddiga qaran ee xakameynta hubka iyo waliba rasaasta warbixin ka soo baxday dawladda federaalka iyo urur goboleedka IGAD ayaa waxa lagu sheegay in guddigaasi iyo shaqada uu qabanayo ay qayb ka tahay qorshaha kala guurka ee Soomaaliya guddigan waxa uu shaqeyn doonaa
ka shaqeyn doona sidii dowladda federaalka ula wareegi lahayd hubka fudud iyo rasaasta ugana ilaaliso inuu gacanta u galo al-shabaab iyo daacish shaqooyinka guddigan waxaa ka mid ah in hubkaasi si gaar ah loo yeesho waxaana guud ahaanba maamulaya oo mulkiyadiisa yeelanaya dowladda federaalka waxaa kale oo guddigan ka shaqeyn doonaa in hubkaasi uusan kasoo gelin ama uu ka gudbin sohodimaha soomaaliya qorshahan ay igaad ku sheegtay inay soomaaliya ka caawinayso in laga qaado cunaqabateynta dhinaca hubka ay saaran warkan ayaa waxaa oo kasoo baxay jimcihii egad ayaa waxaa lagu sheegay in haddii lagu guuleysto ay fududeyn karto in qaramada midoobay soomaaliya ka qaado cunaqabateynta xagga hubka ay saaran haddaba warbixinta waxay kusoo beegmaysaa xilli ra-iisul wasaaraha soomaaliya oo dhowaan la wareegay hub ee yaalay gobolka galgaduud ee galmudug hubkaasi oo ay sheegtay dowladda federaalku inay mas-uuliyadiisa la wareegtay goob xaflad ah oo ka dhacaysay oo ka dhacday cabudwaaq galgaduud ayaa askari ka mid ahaa ciidamada halkaas ku sugnaa wuxuu goobta uu ra-iisul wasaaruhu kula wareegayay hubka ka jeediyey tix uu kaga hadlayay ahmiyadda ciidamada ay leeyihiin gaar ahaan xagga askariga u helan difaaca dalkiisa korneelkaana tababaraha markiisu kulul yahay kaca markuu dhaho koorsada dhibowga waxaan ugu kabiixinahay anigoo kabiin qaba kolba geesu jeesiya kuleeya waxaan orod kaymaha ku marayaa ilaa kowda duurnimo askariga korsaarkaa inaan idinka kaafiyo shacabkuna uu soo galo calankuna koreeya kuwaan hadda nala wali kayfiyad ku gaaraan kulaylkiiyo qabowgaba waxaa kabaha noo xirow tuutaha korkaygiyo ugu talay kubooshka kibistayda ii raray oo meesha kululiyo buuraha korkoodiyo kushka cadowgu gala iyo kaymaha u maraynaa ina soo kireeya dad la keenay maahina dalka ku walaana kaartada qabiilkiiyo kooxa qolow joogiyo koobi gaaran maahina kuway wada lahaanshuhu isku keentay baana karti waxaan u leenahay haddii koonka aan baro axmed guray kuwuu yidhi gumaysiga ka kaco iyaguna karbaashaa guusha keenay baanahay ingiriiskii koonkan keligiis gumaysada kuwii diiday baan nahay kooxdii eswaalo gumaysaha kaxaysiyo waxaan nahay kacaankii dadka heerka kale iyo kalsoonida siiyo afrikada kurkeediya laga dhigay kuwaan jabin karti waxaan u leenahay haddii koonka aan baro kumaan ruushku keeniyo kuubiya etoobiya iyo kuman kaloo kale intaasoo iskaashaday kuwii laga horgeeyo ka adkaaday baan nahay kulayl iyo dad baan nahay madfac kayn dushaan nahay kaariyo mas baan nahay karfan aan la marin iyo kirkir iyo dad baan nahay marna kabaha shacabkiya waxaan nahay kalkaashaha dadka kiisa tabar daran gabaygaasu waa gabayga ciidanka xoogga qaranka soomaaliya u diyaariyey kuwo kaloo ka badanna waan tirinayaa waxaanan ahay dulmane madaxweynihii loo diiday oo ra-iisul wasaarihii loo diiday oo qiiro qaranay waday baan ahaa anoo suuxay maalintii ra-iisul wasaaruhu yimid baa la iga tegay xoogga qarankana waana oo dalkayga inaa saa ku difaacaan rabaa waxaan jeedinayaa gabaygii kale oo aan ka tiriyey waxaan ka tiriyey soobe markuu dhacay madaxweynuhu wareegtadiisiina u marayay waxaan dhahay neergarad gulnimadiida oo geesiyaa tahay sanad gabay ma aan rabin inaan guga kan sheegaayo mase aanan garan waayinine waan ka gaabsaday anigoon garkiiyo shaaribkiyo guudkiiyo caddaanin inaan gabay ku tooqoo ma rabin galo ka sheegaayo wax samaanta ii geynayaa goobta ka caddayn baan kumaadkii ka dhacay hagaagkaasi wuxuu ahaa askari danjira oo ka mid ah ciidamada xoogga oo markaasi ka hadlayay magaalada cabudwaaq xilli uu halkaasi ku sugnaa ra-iisul wasaaraha dowladda federaalka soomaaliya oo kormeer ku marayay ama uu markaas xilligaasi ku howlnaa inuu la wareego hubka yaala galgaduud oo ay dowladda federaalka mas-uuliyadiisa la wareegtay hagaag iminka dhegeystayaal waxaynu soo gaarnay sida aan idin sheegnay maantay oo taariikhda ku beegan 6 bisha 7 sanadka 2019 waxaan bilaabi doonaa kelmado taxana ah oo qayb ka mid ah khudbadihii ay jeediyeen hogaamiyaashii Puntland soo maray laga soo bilaabo Cabdullaahi Yuusuf Axmed iyo sidoo kale siyaasiyiintii iyo waliba hogaamiyaashii dhaqanka ee kaalinta ka qaatay dhismihii dowladda Puntland haddaba waxaa la isweydiin karaa maxay radio sahan u bilaabaysaa ama u go'aansatay
ujeedada ugu weyn waxa ay tahay oo barnaamijkan aan u bilaabeynaa sidii aynu dadka reer puntland u xasuusin lahayn muhiimadii ay hogaamiyaashii puntland soo maray ay qayb uga qaateen in la xasuusiyo halgankii laga soo maray puntland iyo kala dambeynta maanta ka jirta puntland sida ay ku timid. barnaamijkan waxa uu markaasi noqon doonaa ama qaybta waxay noqon doontaa taxano ah oo aan subax walba barnaamijka qubnaha qaybta ugu dambeysa kusoo gudbin doonaa. haddaba waxaan saakay kusoo qaadan doonaa allah u naxariistee madaxweynihii hore ee puntland cabdullaahi yuusuf axmed oo dardaaran culus siinaya madaxweynihii hore ee isna puntland soo maray allah u naxariistee cadda muuse oo 2008 bishii July lagu tuhumiyay in uu muddo kororsi samaysanayo. madaxweyne cabdullaahi yuusuf oo xilligaasi ahaa madaxweynihii dowladda ku meelgaarka ahayd ee Soomaaliya ayaa safar ku yimid Garowe. waxa uu markaas u yimid inuu madaxweyne cadda kala hadlo inuusan hal maalin dib u dhigin doorashadii 2009 xilligaasi. intaynu kala maqnay annagu waxaanu ku maqnay yeelkooda waa ka hadli doonaaye waxaa nagu soo dhacaya warar badan oo wax meeshaan waa ka dhacay in wax weeye ay sansaankoodii muuqdaan oo ay dhici doonaan oo magaciisiba nalooga dhig haddii runtii ay been tahay haddaynu wada joognaa isla ogaanay haatan adigu caddana ma doorano ilaah baa igu oo baarlamaankiina halkaa ka soo jeedaa doortay maaqan qaar cusub baa ku jiray wata soo baarlamaanku doortay ya maanaa ku doortay mayaa tiri anigu waa runtaa waan ku leeyahay ya kumana sheegin inaan galayo haatan aniga xagga waxay ugu timaadaa oolna isagaa nagu khasbay haatanna isagaa nagu khasbay oo naga daba wada inaad tidhaahdaane hadda muse wakaa isbaraxay oo wixii doorashaduna oo waktigeedi doorashaduna waa waktigeedi anigu waxaan kula teliya horta ilaahbaa maahan hadduu idiin sheegiyo haddii kale hadda wadeeragu sidii waagii wax noogu dhaheeyay u dhicine geedkaasa kordhin ma kuwe ya haddaad kari kartid geedkan la yidhaahdo hanku waa bere haddaad kari kartid dadkaana intay ku eedayn lahaayeen haddana hadda hatirteen meel iska seex inda joog ma qabaan taataa igu tiri anigu isa idiin soo noqdo halka puntland madax noolaa raba ilaah bay gata waran ma nooleysa maanta ma guddoonsanaa caddow inay saas tahay ya doorashadu waa waktigeedii maxaa ka haray 4 bilood haddaa saddex waa tiri bishee lagu doorto bishaas kale waa iska 5 bilood hadda 5 bilood haddeeray dhammaanaysaa horta weynala talinaayo waagii aan isku yaacnay intaa seekaaya dhimatay ma kor qabta ninkii haatan dhinacan ka soo jeeday maya dhinaca kale ka soo jeeday oo ciidanka wato caddo cadda la soo hadda waagii inqalaabka hadduu socon waaye haatan in lays inqalaabo anigu ma ogoliye adigu dadka doorashada iska hortaagi ciday rabaan ha doorteen waxaad siisaa xorriyad ya waa hagaag dhegeystayaal intaasi waxay ahaayeen qayb ka mid ah hadal taariikhda galay oo muhiima oo ujeediyey madaxweynihii hore ee dowladii ku meel gaarka ahayd ee Soomaaliya Cabdullaahi Yuusuf Axmed ahaana madaxweynihii ugu horeeyay ee dowladda Puntland sanadkii 2008 isagoo markaas ahaa madaxweynihii dowladii ku meel gaarka inta uusan ka hor xilkaasi iska casilin ayaa wuxuu safar u yimid haddaan hadalkiisii madaxweynuhu idin sii faahfaahiyo magaalada Garowe bishii July sanadkii 2007 xilligaasi oo muddo ka yar 5 bilood ay ka harsaneed doorashadii xilligaasi loo madlanaa 2009 doorashadaasi oo ku guuleysay madaxweynihii Puntland Cabdiraxmaan Faroole. marka madaxweyne cabdullaahi yuusuf axmed wuxuu u yimid kadib markii uu maqlay sidoo hadalkiisa hadda aad ka maqlayseen in uu madaxweyne cadda damacsan yahay inuu muddo koras samaysto. kadibna madaxweynuhu wuxuu kala hadlay in arrintaasi uusan sameyn Puntlandna uusan gelin dhibaatadii isaga iyo cadde markii soo kala dhex martay oo dagaalada ay galeen
inaysan puntland u horseedin oo uu doorashada hal maalin ku darin isla markaana uu meesha ka saara tuhunka ay ka qabaan musharaxiinta iyo dadka puntland in uu muddada ku darsanay ama uu doorashada dib u dhigayo. haddaba dhegeystayaal maalinta berito waxaad maqli doontaan waad idin soo dayn doonaa sida madaxweyne cabdullaahi yuusuf axmed allah u naxariistay uu ku xaliyey khilaafkii soo kala dhex galay isla xilligaasi oo markii doorashadu ay dhaweed madaxweyne cadda muuse iyo musharaxiintii kale ee kula tartamayay xilka doorashada. waxaa la isku khilaafay guddiga xalinta khilaafaadka. madaxweyne cabdullaahi yuusuf axmed oo isla sidaas oo kale u yimid garowe ayaa wuxuu ka hadlayaa qodobadii uu ka soo saaray ama arrintii qaabka u dhameeyay khilaafkii dhex yaalay madaxweyne cadda muuse iyo weli musharaxiinta xilligaasi xilka madaxtinimada kula tartamayay. waa inoo iyo berita iyo qaybtaas ayaa dhegeysan doontaan barnaamijka qobnaha iyo qayb ka tahay barnaamijkan dhegeystayaal guud ahaanba intaas baan kusoo gabagabeynaya anigoo cabdulle maxamed sheekh ayaa barnaamijka halkaan idinkaga tabanayay cabdixamiid salaad barre ayaa ii farsameynayay tan iyo barnaamijkan inta aan ku kulmino mid lamid ah waxaa idinku dhaafayaa sidaas iyo nabadgelyo.